dumar waayeela dayarada dhexdeeda ay ku neef qabatooday hooyada waayeelkii maanta xukuumaddan jirta ay ku ahayd dawladda ay ku ahayd ay daaqada ka tuurtay maya dayarada gudaheedan kala hadlay waa ku filan dayaradan ku fadhiyaa xildhibaan cali xaaji soo dhawow bal sidee wax u dhaceen walaal ma mahadsantihiin halka maanu ka kacnay mar 12 saacadu ahayd waa dayaradu waa daalo waa dayaradu weyn rakaab badan iyo xildhibaanada labaataneeya taqriiban ayaa sanadkii xildhibaan isugu jira ayaa saaran oo labadii gole ee Puntland iyo siyaasiyiin kale markii ay garow ku dhawaatay ay caga dhigan lahayd bay dayarada amar la siiyay inay soo laabato amar bay nagu soo celisay dayarada amar baan fadhinay ma airportkan kala hadlaya waayay yaa idin soo celiyo la idin sheegay waa amar dawladda bay yiraahdeen way dayarada wad garanaysaa nidaamkeeda cid celin karta ee amar siin karta waa xukuumadda federaalka Soomaaliya waay xildhibaan saakay waa baxdeen muqdishaad ka baxdeen garowe ujeedadiinu maxay ahayd inaad u aadaan garowe waxaan u aadaynay wada tashi aan la tashanaynay maxaan ku raadayay deegaan doorashadii dawladdii Puntland madaxweynaheedii iyo nidaamkii wada tashi xaaladda dalku marayo iyo halka uu galay waa arkaysaan sida uu carqaladoobay dastuurkii waddanka loogu tuntay shuruucdii waddankan uu ku kala socday dawladnimada lagu ahaa maanta xukuumaddan jirta ay ku ahayd dawladda ay ku ahayd ay daaqada ka tuurtay arrintaas aanu wada tashi ka lahayn waayahay maxaad tuhmaysaan in la idinkugu soo celiyey maadaama wada tashiyo deegaanadiinii aad uga socoteen wax wanaagsan ma aha aslan in xildhibaano keliya dayarada may karaysnayn rakaab baa saarana boqol ka badan dad waayeela caruur dad xanuunsanaya ku jira hadda waa arkayseen warbaahinta dawaa la duubayay dadka waayeelka ah dawiishka lagu dejinayay ku neef qabatoobay xilkas darro iyo mas'uuliyad la'aan baa halkaa ka muuqatay sabab dad muwaadiniina oo nabadgelyo oo dalkooda ku safraya loo safarkooda loo carqaladay xaaladooda khatar loo geliyaana mas'uuliyad darro bay muujinaysaa waayahay inta diyaarada saarneed kuwan diyaarada lagu soo celiyay marka la dhibaateeyayna kama wanaagsana kuwii guryaha lagu tumiyay kama wanaagsana kuwii la barakiciyay kama wanaagsana kuwii iyaga urda cagafta la gelinayay kama wanaagsana waayahay ma dad neeftu qabatantay miyaa jirta oo diyaaradda idin la saarnaa oo daa si wanaagsan waa arkaysan in hadda wiish lagu dalacayo qof dumar waayeela dayarada dhexdeeda ay ku neef qabatooday hooyada waayeelkii waayahay waxaa jirta warar soo baxaya oo sheegaya in dawlad kale aad damacsaneedeen in garowe iyo kismaayo ka abaabushaan ilaa Nairobi arrintaas maxaa ka jira maya maqlayseen laba maalmood ka hor markii madasha mustaqbalkii xildhibaanada isugu yimaadeen shirkii jaziira loogu magacaabay difaaca dastuurka waxa la ballamay haddii dawladda arrinkeeda waxba ay sidan ku sii adkaysato abriil ayaa la ballamay taasi ma ahayn wax maanta taagan anagu waxaan u soconay wada tashi iyo sidii xaaladdan looga gudbi lahaa waayahay hadda intaad joogtaan xildhibaan ma diyaaraddii aad ku soo laabateen aad dhex fadhisaan ama qaybta VIP-da garoonkaa soo gasheen maya dayarada gudaheedan kala hadlay waa ku filan dayaradan ku fadhiyaa dayarada gudaheedan kala hadlay rakaabkii iyo xildhibaanadii waa saaran yihiin dayarada qorshihiinu muxuu yahay marka ma in la idin fasaxo ma in si toos ah u soo wada degtaan oo aad muqdisho ku soo laabataan maya muqdisho waa fadhinaa dayarada in amar la siiyo amarkii lagu soo celiyo amar kale la siiyo oo ay ku duusho oo rakaabkana safarkooda ay sii wataan xildhibaanadu halkay ku socdeen ay aadaan oo ay garowe ka degaan qorshaha u dawaa kaa